بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم مدحوينها جبلان يماملك مدحوينه كحجينك يقدوميها برلمانك شعبك يضاف ري جبلان ودن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام شرفي النوت هاي inaan maanta aan booqasho ku nimaano caasimadda kumeel gaarka ah ee Jubbaland magaalada Kismaayo runtii wax loo baahnaa bay ahayd waana soo daahnay duruufo iyo arrimo shaqo iyo hawlo jira awgood inaan mar hor imaanay ahayd maanta Ilaahay saantaanada soo qaaday ka horna ismaana moogeyn oo waa iska warqabnay madaxweynaha iyo shacabka iyo maamulka waa xiriirka anaga toos u ahaa laakiin maanta Ilaahay saantaanada soo qaaday maanta nimid aadaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan ka mahad celiyo soo dhaweyntii diiranayd oo maamul iyo shacab loo soo baxay oo sida qalbi furnaanta iyo walaalnimada iyo xigtada goonida ah ay ku jirto loogu soo dhaweeyay waa ku mahadsantihiin intaas kadib madaxweynaha sheegay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxay isku yihiin iyo waxa ka dhaxeeyo wax aan dadka dhan ka dhaxaynin waaye dal iyo deegaan iyo deris iyo daaq iyo siyaasad iyo walaalnimo iyo intaba ka dhaxayso runtii arinta ay ahayd inaan laba jibaarno oo noolayno xiriirkii iyo isdhaxgalkii iyo wada dhaqankii iyo walaalnimadii iyo deris wanaagii aan soo xoojino ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqdo ama ganacsi ha noqdo ama isdhaxgalka bulshada ha noqdo ama walaalnimada iyo wada jirka ha noqdo intaasaan maxay ahayd socodka anaga ahaa la socotaan xilli adag oo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roob noo keeno abaaraha jiro oo si gooni ah koonfurtan Soomaaliya u taabtay gaar ahaan ay ugu daran yihiin Jubbaland waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay ba oonka iyo abaarta uu bixiyo inuu Ilaahay abaarta uu naga qaado guud ahaan gaar ahaan goboladan aan hadda nimid inuu Ilaahay abaarta ka dul qaado runtii waa iswarsan doonaa si guud iyo si gaar ahaaneed waa isu warsan doonaa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantiin madaxweyne adii shacabkaada waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu